sida loo noqdo qof hal abuur leh oo fikrado cusub keena. sideed ku noqon kartaa qof hal abuur leh oo fikrado cusub keena. Dad badan ayaa si qaldan ugu maleeya in hal abuurnimadu ay la xidhiidho hidde oo ay dadka qaar ku dhashaan qaar kalena aanay ku dhalan, balse taasi gabi ahaanba waa qalad. adigoo bedelaya hab nololeedkaaga sidoo kalena wax ka bedelaya hab fikirkaaga, waxaad noqon kartaa qof hal abuur leh oo fikrado cusub keena, xataa haddii aanad imika labada midna lahayn. haddii aanad hal abuur lahayn, fikrado cusubna aanad keeni karin, noloshaadu waxay noqon doontaa mid aan isbedel lahayn, waxaanad noloshaadoo dhan raaci doontaa hal dariiq oo kaliya. taasina waxay sababi doontaa inaanad weligaa xal u helin dhibaatooyinkaaga, sababtoo ah waxaad badanaa raacaysaa dariiqooyin isku mid ah oon kuu shaqaynayn. muuqaalkan waxaan kuugu sheegi doonaa waxyaabaha aad u baahan tahay inaad samayso si aad u noqoto qof hal abuur leh oo fikrado cusub keena. tallaabooyin aad ku noqon karto qof hal abuur leh. bedel habka aad raacdo. cilmi baadhis ayaa waxay caddaysay in habka isku midka ah ee aad raacda uu yahay dilaaga hal abuurnimada. si aad u noqoto qof hal abuur leh fikrado cusubna keena, waa inaanad maalin walba wax isku mid ah samayn, hab isku mid ahna aanad raacin. bedel wax kasta oo aad ka bedeli karto waxyaabaha aad maalintii qabato. isku day in waxyaabihii kala duwanaa ee aad qaban jirtay aad habab kala duwan u qabato, ama xataa isku day waxyaabo aanad weligaa hore iskugu dayin. waqti firii ah si inaad hal abuurnimo la timaado. xataa haddii aad bedesho habka aad raacdo, waxaa laga yaabaa inaanad sidaa hal abuur u sii yeelan haddii aanad waqti siin inaad fikrado cusub keento. si aad u noqoto qof hal abuurnimo dhab ah leh, u hur waqti firii ah inaad fikrado cusub keento. ka takhallus waxyaabaha xadidaya awooddaada fikir. mid ka mid ah waxyaabaha dila hal abuurnimada isla markaana ka hortaga inaad fikrado cusub keentaa waa waxyaabaha xadidaya fikirkaaga ee aad aaminto. tusaale ahaan, haddii aad ku qanacdo inaanad weligaa xal u helayn dhibaato, weligaa xal u heli maysid dhibaatada. hab fikirka xadidani wuxuu kaa hor istaagayaa inaad aragto suurtagalnimada aad wax ku samayn karto. taasina waxay sababaysaa inaad xaqiiq kaliya ku dhegto oo aanad isku dayin inaad isbedel samayso. jooji cabsashada aad ka qabto inaad guul daraysato. si aad u noqoto qof hal abuur leh fikrado cusubna keena, waa inaad wax isku daydaa oo aad guul daraysataa, isla markaana aad sidaa ku wadaa. hal abuurnimadu gebi ahaanba waa inaad samayso waxoogaa qaladaad ah ilaa aad ka helayso wax sax ah oo kuu shaqaynaya. haddii aad ka baqato guuldarrada ama aad ka baqato inaad khatar gasho, ogow inaad ku dheganaan doonto uun meesha yar ee aad la qabsatay oo aanad hal abuur cusub keeni doonin. baro inaad wax indha-indhayso. mararka qaar inaad dadka kale indha-indhaysaa way ku dhiirigelin kartaa, waxaanay kugu hogaamin kartaa inaad hal abuur yeelato, fikrado cusubna aad keento. kala hadal saaxiibada fikrado. inaad saaxiibada fikrado cusub kala doodaa aad ayay kuu caawin kartaa. laba fikir oon la aqbali karin oo ka yimiday saaxiibada ayaa waxay kugu hogaamin karaan fikir saddexaad oo la aqbali karo. samee waxyaabo cusub. waqti kastaba isku day inaad samayso waxyaabo cusub oo aanad weli hore u samayn. ugu dambayntii, haddii aad maalin walba wax isku mid ah si isku mid ah u samayso, waxaad heli doontaa natiijo isku mid ah. haddii aad dhab ahaan u rabto inaad bedesho noloshaada, waa inaad noqotaa qof hal abuur leh, isla markaana aad isku daydaa waxyaabo aanad weligaa hore iskugu dayin. haddii aad rabto inaad hesho waxaanad weligaa hore u helin, waa inaad samaysaa waxaanad weligaa hore u samayn. aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin. like saar haddii aad muuqaalkan ka heshay, taabo subscribe haddii aanad hore subscribe u siin, sidoo kale la wadaag asxaabtaada. waa anigoo cabdirasaaq faarax ah, tan iyo kulankayna kan xiga haddii alla hawooda lidmo. nabaday.